maalmihii dambe waxaad ka soo yeeraysa degmada cabasho ku aadan in aad degmadu ku yaalo xabsi taasoo dhibaato lagu geysanayo shacabka degmada qaarkood warbaahinta la hadlay arintaas oo si gaarana maamulkaaga degmada ay kugu eedeynayaan dhibkaas maxaa ka jira marka horta eedaas wax ka jira ma jiraan shacab lagu dhibaateeyana ma jiraan degmadan annagu waxaan u joognaa waa shacabka in aan dhibaatadana aan ka ilaalino wixii horumar u baahan aan u qabanno dhalinyarada hadda ka hadlaysay waa arkay laftirkeygu waan soo gaarayaan wararkoodu horta ma ahayn wax ka jira shacab banaanka ka yimid ama loogu taga ma ahayn waxaan dhalinyaradii ka shaqeynaysa degmada oo maamulka kamid ahayd صح waxayna ahayd hadana wax ayaga dhexdooda ka dhacay صح ma aha wax shacab hadda banaan jira loogu taga ma ahayn wax cid kale ma aragtay lagu sameeyana ma ahayn annaguna raali kama nihin in qof shacab ah lagu sameeyo wax oo xadgudub ah tan kale qofkii ayadu qalad sameeysan sharciga inay martay ku qasbanto صح ما qalad sameeysan la iska diino qof qalad sameeysan in la soo xiro lagu qasbay qaladku marka marna maamulka dhexdiisa wax ka jira ayuu noqdaa hawl ana sabab loo maru leeyahay marna waxa jira wax shacabka dhexdiisa ka dhaca صح waxa shacabka dhexdiisa ka dhacdana wadada ay leedahay maraan cid gardaran iyo cid qaldanba halkaas la marsiyaa waradii kulmiye dad qaar waxay tilmaameen in xabsi la yiraahdo cusboole degmada Jacfaran tahay oo ragii maamulka degmada aragtidooda ka duwan wax ka sheega in halkaasi lagu xiro ma jiraan xabsigaas xabsi cusboole lira oo degmada maamulka u gooni ah ma jiro horta xabsigan lagu sheegay la leeyahay siyaad baro kii iyo xilli hebel waxa iyo xabsigu meesha guriga meesha ku yaal dhismaha ku yaal waa saldhigi rasmi ah oo degmada Daynile mana ahan xabsi cid gooni u sameeysan waa saldhigi degmada Daynile oo rasmi ah cid lagu ciqaabay cid lagu dhibaateeyana ma jirto sidiisana aan hadda waxa loo isticmaalaa waa ciidanka degmada qaladaadka ay sameeyaan iyo ayagu markay shaqada cidii aan qalad ka sameeysa waxaaba noocaas la geeyaa cid shacab oo sameystana waxa la geeyaa saldhiga kale oo rug ku taala Jarmalka meeshan saldhiga ku xabsiga laga sheegay waa saldhiga degmada Daynile oo rasmi ah waxaan looga dhigay xabsi siyaad bar xabsida magaalada ku yaal waa siyaad bar xabsigu sameeyay gibgood kana ay ka mid yahay tan kale waa saldhiga degmada sida dagaalka labada adduunka dhisma ka yimido baabaasan oo dadka lagu dhibaateeyo saasa waxaas wax ka jira ma jiraan ciyaalkan hadda wax ka hadlaana waxaas wax mar hore ay isku sameeyeen dhexdooda ay ahaayeen kan hadda biyaha lagu shubaa meesha aan ka aragno mid kan kale qeylna oo dhahaaya haraaya la yiraahdaa wariyaan ahay wariye iyo wax ay shaqo lahayn lama arko ciyaalka meeshan joogi ahaayeen 3 jeer oo asiga lafkiisa la soo xiray wax sababta loo soo xiray dad oo dhibaateeyay un bay ahayd